الحمد لله رب العالمين الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي waxaan ka baryay subxaanahu watacaala marka horeysa waa tobankii u dambeysay gelinaa rabadaanta in ilaahay khayrkeena siiyo subxaanahu watacaala ilaahay raxmaadka ina siiyay inoo kordhiyo inoogu wado ilaahay baa inaga hayo ciid wanaagsan ilaahay subxaanahu watacaala ina kulmiyaan jeclahay yani ilaahay ka baryay subxaanahu watacaala waatan ku heshiinaan nirida waxa weeye dalku xaalad adag buu ku jiraa marka waan shacbiga kolba halka wax marayaan waa la socodsiiyaa ilaa hadda dagaalkii afguriga ka bacdi wax dagaal wadama kama dhicin laas ahaanood waxaan markaa hortaan tahnideynayaa ciidamada qaranka sida Soomaaliya geesiyada dhaqankii lagu yaqaan reer Soomaaliya ilaahay subxaanahu wa ta'aala weligoodba goob quraan laga adkaa taariikhda dad u eegtay sababta ay tahay inagu ma duulo wala inagu soo duulaa way iska difaacnaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala guushiina siiya wala dulmiyaa dagaalkan Soomaaliland maanta ka socda ee lagu soo duulay Soomaaliland ilaa saacado laga bilaabay horta waxa weeye waa G21 waana haraagi Maxamed Siyaad Bare gruubkaas waxay abuurmeen 5 sano ee uu hayay maamulka Muqdisho uu hayay farmaajo wuxuu damcay oo buugu la yimi ahayd inuu legacy Maxamed Siyaad Bare soo celiyo hadda ogtii markiiba horta wuxuu bilaabay inuu bitaaladii Maxamed Siyaad Bare ee bari la googooyay inuu ka taago meesha Muqdisho buugiisii ayuu la yimi wuxuu ku fakiray markaa oo horaanta ka dhigtay inuu dadkii Maxamed Siyaad Bare magacaanayay jabadihii ka adkaaday ee ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka guush ka siiyay inuu ka adkaado dooniyo ku soo ka argosto taas waa khilaafka weyn oo keenay isaga iyo Axmed Madoobe iyo Deni oo midna ka oranayo USB midna ka oranayo SSDF iyo inagoo mid gaar ah ugu sitay argos iyo inuu dusha ka saaro Soomaaliya buugii Maxamed Siyaad Bare ee beentaha 18 gobol waxa dalkan Soomaaliland iyo dalka Soomaaliya laba dal oo xor ah qaatay calan 26 Juun iyo 1 July midna waxa laga dhaxlay 6 degmo iyo 2 sub district baa laga hadlay oo Soomaaliland sub district ah Saylac district ah Hargeysa Berbera Burco Laascaanood Erigabo iyo sub district ah Laas Qoray Soomaaliya waxa laga dhaxlay 6 gobol gobolka Metropolitania Mudug Hiiraan Banaadir Jubbada Sare iyo Jubbada Hoose marka sida la sheego waxa si loo kala deganaa inagu deesku isku qajaami jirin wala kala garanaya Soomaaliland waa qaran jiray adduunkana ku jira xoog lagu soo dhaxsaday uu jiriya biidnillaahi kariim calanka la ilaaha illa allah weliga hoos u dhici maayo biidnillaahi kariim ha ku khasaarina ma leeyahay marka waxaan ka hadlaynaa ergeyga Cabdikariim ka hadlaynaa ergeyga Cabdikariim waxa weeye horta anagu Sinay wuxuu sameeyay ergeyga wada hadal Soomaaliland iyo Soomaaliya adna ayuu ku magacaabay weli way joogtaa adna anagu sadan Soomaaliya iyo Soomaaliya wada hadlayaan miduu marka wada hadli doona insha Allah taala waxaan ka wada hadli doonaa sidaan wax wada qabsan lahayn laba dolo walaala oo sidii 60kii ku heshiiyay 60 ku heshiinay inaan wax isku darsano laba ra'iisul wasaare jiray laba baarlamaan jiray maantana horta Soomaaliya xaqirto anagu dhibaato tirsan mayne
laba dalo isku jireen oo anu ka baxnay midnimadii aan 60kii ku dalay bila shuruudaha awooyaasha ku sameeyay abayaashay waanu ka baxnay taa haqreen in maanta labadii Soomaaliya iyo Soomaaliya kala baxeen oo midna cidna oo midna ay taagan tahay midna ilaa hadda aanay taagnayn oo iyadoo u baahan horta inay midowdo iyadii inay midowdo maanta Soomaaliya waxaan leeyahay ma jirto Ismaaciil waad aragto ciidamo gaaray leeyihiin adduunka la macaamilaya ma jirteen waa aragto waa gaar Hirshabelle ma shaqayso galmudug ma shaqayso horta idinku isa soo hagaajiya oo wadankii Soomaaliya ku daydo oo soo celiya markaas oran kartaa aan wada hadalo inuu waxaan u diyaarino ka wada hadalo haddii la ilaaho inaynu sida wax wada qabsan lahayn heshiisyadii hore aynu wada gaarnay Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh sidii ay u soo celin lahaydeen oo jawi wanaagsan oo walaalnimo ah oo wada qabsan karno oo security wa shaqeynka in laga wada hadla fiican laakiin wada hadal Soomaaliya waqtigan ka dhacay karaya ma jiro anaga doorashadu gelinaa idinkuna waxa ku jirtaan operation ba ku jirtaan magaalada saay waddanka ka saaraysan wadadii extremiska ahayd marka horta yaa la isku qaldin anagu dalkayaga gorgortan geli mayso Soomaaliland hadda kiini gorgor gelisan Soomaaliya oo shan u qaybiseen anagu kaayaga mar dambe talada dalkayaga cid la yeelan mayno naba ageen taa ku seexda hadduu naga hadhin waxaan waliba ku jecelahay inuu soo dhaweynayaana ina sida magaalada Ethiopia aliyo police u baabiisay idinkuna u baabiisaan dowlad goboleedka ciidamada samaysanaya hadda Puntland waxay leedahay taangiyaan ku caawinaa lascaanood taangiyada ku caawinayso biri adig ku dagaalamaya xageed ku aragtay dowlad goboleed madaxweyne leh oo adduunka la macaamiliyo oo ciidamadaho heshiis dowladda la soo sameysanayo hub la siinayo xageed ku aragtay waxba idinka qaldan baan leeyahay Soomaaliya sameeysta waxaan jecelahay inaan iyagana ka hadlo odayaasha way imanayaan ogaaska anagu horta waxaan naqaanay beesha inuu imaan wax la yiraahdo imaan daahir baan naqaanaa ogaaska ka degay magaalada Saylaas Garowe groupka wata anu Faysal ahaan iyo xusbi ahaan haddii ninka la soo daayo iyo groupkiisa anu waxaan u aragnaa in ay qaladkii ay hore u dhacay ee garaadada hubkoodii wata ciidamadoodii wata ee calan Soomaaliya sita lagu soo daayo lascaanood nimanka Garowe lagu soo faatixiyay ee lascaado yimi oo ooyadeen lascaado markay sameeyay waxay ku haliyeen in haddana maanta Soomaaliland la yiraahdo way imanayaan oo toodii baa u baahantay toodii baa ayaa qasan waxba dhexdhexaadin leh Soomaaliland iyo lascaanood lascaanood weligeed leenahay dhexdhexaadin dhaqan baan leenahay weligeed baan wada fariisan jirnay intaasna wada nooleen maanta faraha shisheeyaha ku jireen faraha shisheeyaha ka baxeen waxaan leeyahay garaadada markale waxaan leeyahay garaad Ismaaciil Jabuutaawi dadkan isdaqaanay ina garaad Saleebaan waxaan leeyahay Ramadaan Kariim Ramadaan Mubaarak dadkii soo celiya iska saara dadkan guryahoodii ka saarteen ay soo galeen dad aan meesha u dhalan ee khamriga ku cabaya ee dumarka hubsanaya ee dadka baraaqaysanaya ka saara ma leh ilaahay ka boqo subxaanahu wa ta'ala nabad qaata nabad lama diido wixii nagu xumaado waa hagaajisanayna dawladna waxaan leeyahay ilaa hadda ana noo muuqato dawladda in wax Allah wax istiraatiijiyad oo lascaanood ku saabsan inuu dawladda ma jirtay waa nin baa waddanka isku duuduubay inuu kaas hayo doorashadii madaxweynaha ku sugaysa waa qabiyo lascaanood waa ku sugaysa waa qabiyo dalka dhaqaalihiisa waa arka halku mariyo waa qabiyo dalku wuxuu u baahan yahay inuu socdo dalku wuxuu u baahan yahay inuu shaqeeyo gurigan iska fadhiya kulma reer baan u yeelanaya dal lagu ma wadi karo
dal laguma wasaan laguma wado dal waxa lagu wadaa siyaasad iyo istiraatiijiyad iyo wada tashi ayaa lagu wadaa waxaan shacbiga reer Soomaaliya leeyahay waa tobankii u dambeeyay dadkeenu aad iyo aad bay u tabaalaysan yahay hala isku naxariisto gamcaha la furo aakhiro waxa la dhigto mustaqbalka Allah iska horeysiis masaayisi dhigta hala isku naxariisto ha loo gargaaro dadka fuqaraada ah een ciidi kareen in aafur haysan ha loo gargaaro ciidamadeena ha loo duceeyo wixii loo tariyo ha loo taro dagaalkan laascaanood waxaa la garaado haweenka iyo caruurta talalka daayidku taliya idinku تعليمتي تليا سياسيين تليا وحودان wax suurtagal maaha Ramadan Kareem Ramadan Mubarak ila inaga aqbalo ila nabada inuu adkeeyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo iyo muslimka Ilaahay subhanahu wa ta'ala guushaas iyo nabadgelyaas iyo wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh